رمضان يا شهر الصيام أغدقت قلبي بالوئام عادت بعودتك الحياة كالنور في جنح الظلام ضيفا عزيزا لا تزال تأتي لنا في كل عام تأتي لتمنحنا الأمل نرجو لقاك على الدوام أنواء نورك أشرقت على الخليقة والأنام أقبلت بالأجر العميم بسم الله الرحمن الرحيم يا رمز السلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إلهي سبحانه وتعالى isagoo la hadlaya rasuulkiisa wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala facfu canhum wasfax, iska cafi oo iska dhaaf, in allaha yuxibu almuxsiniin. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muxsiniinta ee samafalowga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay. walaalayaal, cafwiga ama dhaafitaanku wuxuu ka mid yahay sifaadka ay leeyihiin dadka wanaagsan ee ahlu jannuhu ay leeyihiin ayuu ka mid yahay. qofku waxyaabaha uu darajada ihsaanka darajatul ihsaan darajada wuxuu ku gaadhay waxa kamida cafwiga iyo dhaafida. fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin. ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muhsiniinta samafalowga khayr kale ilaahay waa jecel yahay, waa dadka wax iska cafiya ee dadka uurxumo iyo calool xumo iyo xiqdi iyo xasad aanu haynin ee laabtoodu ay saliimka tahay caafimaadka qabto waa kuwaas weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fasfax as-safha al-jamiil. cafwiga iyo safxiga, cafwiga waxa la yiraahdaa qofku inuu qofka ka dhaafo waxa uu kaga argoosan karo, isagoo qofku ka argoosan kara inuu qofka iska cafiyo ayaa la yiraahdaa cafwi. safxina waxa la yiraahdaa inuu qofka wixii uu ku canaanan karayay inuu ka dhaafo oo auna ku canaananin ku hadidin ayaa la yiraahdaa safxi. marka in qofku wixii uu qofka kaga argoosan karayay inuu qofku iska cafiyo, hadalkii uu qofku awood u lahaa inuu ka jawaabo, ama wixii uu qofka ku canaanan karayay inuu iska dhaafo ayaa waxa la yiraahdaa safxi baa la yiraahdaa, dhaafid baa la yiraahdaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo tilmaamaya sifaadka ay leeyihiin dadka muttaqiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada, ilaahay wuxuu yidhi wasaaricu ilaa mawfirati min rabbikum wa jannatin carduha as-samaawaatu wal ardu uciddat lilmuttaqiin alladhiina yunfiquuna fi as-sarraa'i wad-dharraa'i wal kaadhimiina al-ghayz wal 'aafiina 'ani an-naas wallahu yuhibbul muhsiniin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wasaaricu ilaa mawfirati min rabbikum, u degdega buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay dambi dhaafkiisa. وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، إيا جنة بلد كيدو أو يهي سماوات كتضبضة إيا دولال كتضبضة أو طرف كلا إسكو ساري دين على إسكو ساري بلد كيدو جنة أو ليجي هي إن ولو دياري دتك متقين تا إلهي سبحانه وتعالى كعب صدا تا أدك دقة بو رب إلهي سبحانه وتعالى. أدك دقة دو معنى دو حويان عمل كي الجنة كهلي الهيدين أدك دقة عماشي الجنة كهلي الهيدين إلهي رالي نيجي نقوني جنة أتكم تيسنيسين ودق دق أبو رب الله سبحانه وتعالى. جنة وحلو ديارية ضدك متقين تا إلهي كعصدا. هذا ضدك متقين تا صفات كإلهي سبحانه وتعالى أو كسفيه وحكم ذا الذين ينفقون في السراء والضراء كوا بحناية أو حلب حياة إلهي هرتي وحلب حياة في السراء والضراء. مركا أي دبات جرتو مركا أي جرتو باهي مركا أي جرتو أي واحد بحناية نفتو ذي كجوينيان iyagoo u baahan bay alla dartii u bixinayaan. marka ay barwaaqada iyo ladnaanta ay ku jiraan waxbay bixinayaan. xaalad kasto ay ku sugan yihiin waxbay la baxayaano ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii ayay ula baxayaan. alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kaadhimina al ghayb wal 'aafina 'ani nas. doonay maanta inaan hoosta ka xariiqno waxa weeye wal kaadhimina al ghayb wal 'aafina 'ani nas. waa kuwa carada liqa
cadhada kuwa liqa wey inta aynan cadhadii ay cadhoodeen ee qof ay u cadhoodeen inta ayna ka jawaabin inta aynan falcelin ayna ka samayn intayna ka falcelinin marka ay cadhoodaan kuwa cadhada liqa wey way adag tahay qofku marka uu cadhoodo oo lagu xadgudbo inuu cadhada liqaa waa arrin u baahan tarbiyo waa arrin u baahan waxa weeye adkaysi waa arrin u baahan tababar adag oo nafta lagu tababaro oo lagu layliyo u baahan sidaa darteed baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ninkii u yimid ee yidhi awsini yaa rasuulallah rasuulallah ii dardaaran nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab 3 jeer buu ku celiyey oo rasuulallah ii dardaaran rasuulku wuxuu ku yidhi ha cadhoonin mar kaluu ku celiyo wuxuu yidhi dardaaran nabigu wuxuu ha cadhoon mar saddexaad buu ku yidhi rasuulallah ii dardaaran nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ha cadhoonin waayo cadhadu waxay keenaysaa falcelin bay keenaysaa inuu qofku intii lagu sameeyey in ka badan uu sameeyo haddii la caayay in ka badan inuu qofka caayo haddii la dulmiyey intii in ka badan inuu qofka kala dulmiyo sidaa darteed xalku waxa weeyaan inuu qofku cadhadii demiyo inuu liqa marka cadhada inuu liqo walkaadimiina alghayd kuwa cadhada liqa walcaafiina can innaas dadkana iska cafiya dadka iska cafiyo iska saamaxa iska dhaafa walaalayaal samxiga dhaafidda iyo cafidda waxa ku jirta nolol wanaagsan baa ku jirta haddii aad doonayso nolol wanaagsan oo bogaadin leh oo xasilan oo waxa weeye deganaan ay ku jirto haddii aad doonayso inaad ku noolaato dadka iska cafi laabtaada dadka ka cafi iska saamax iska dhaaf waxaad ku noolaan nolol wanaagsan baad ku noolaan deganaan baad ku noolaan nolol waxaad ku noolaan alxayaatu saciida waxa la yiraahdo nolosha wanaagsan haddii kale waxaad ku noolaanaysaa cidhiidhi ayaad ku noolaanaysaa haddii marka qalbigaaga iyo oorkaaga hadday buuxiso calool xumo iyo cadho iyo xiqdi iyo xasad adaa kadeedmaya qofka kale maba dhibano qofkanaad calool xumada iyo uur xumada u hayso waxaa laga yaabaa inuuna warba ku haynin inuu iska faraxsan yahay in uu dhibtanba ogeyn laakiin adaa dhiban adaa caloosha ka gubanaya adaa cidhiidhi ku jira adaa kadeedan marka maxaa ku dhibay waa inaad markaa iska cafiso aad iska dhaafto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu ha iska cafiyeen oo ha iska dhaafeen alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum ilaahay maanad jeclayn ilaahay inuu nii dembi dhaafo in ilaahay kuu dembi dhaafo maana doonaynin dembi dhaafka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu dembi dhaafayo waxyaabaha lagu xidhay waxaa ka mid a inaad dadka iska cafiso inaad iska dhaafto ayaa ka mid a nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kadama haydan bal xadiidkaas aan wada dhegaysano wuxuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam man kadama haydan wahuwa qaadirun calaa an yunfidahu qofka cadho liqa oo naftiisa ku qasba inuu cadhadaa liqo oo auna ka falcelinin wahuwa qaadirun calaa an yunfidahu awoodna u leh inuu fuliyo cadhadan waxana au ka cadhooday inuu falcelin ka sameeyo awoodaa ayuu awoodaa falcelintaasoo ama af ah ama adina inuu sameeyo ayuu awood u leeyahay laakiin uu liqay cadhadii buu liqay wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dacaahu allaahu subxaanahu wa tacaala calaa ru'uusi alkhalaa'iq yowma alqiyaama xataa yukhayirahu min ayi alxuuri shaa'a ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas maalinta qiyaame ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeedhaya maalinta ilaahay addoommadoo dhan isku keenayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalaa'iqdoo dhan ou rabbi kulmiyo maalintaasi ayaa dadka dhexdooda looga yeedhaya qofkaas sharafta uu leeyahay qiimaha uu leeyahay arrinta uu sameeyey ee uu naftiisa ku qasbay ee uu ku leyliyey culayska ay leedahay darteed maalinta qiyaame ayuu ilaahay u yeedhaya markaas baa la dooran gelinayaa min ayi alxuuri shaa xuurul caynta jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku diyaariyey yaa la dooran gelinaya xuurul cayntaasi intaa doonta ka qaada ayaa lagu odhanaya lagu abaalmarinaya maalinta qiyaame walaalayaal cafiga iyo dhaafidda waxa weeye waxa soo galaya haddii qofkan aad dulmi ka gashay ama aad dembi ka gashay oo ama aad hantidiisii dhacday ama aad cirdigiisii iyo sharaftiisii ku xadgudubtay inaad ka xalaashato qofkii inaad ka xalaashato intaad adduunka joogto wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam
من كان عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو من شيء قفك ولالكي ظلمك قلا وأما عرضكيسي يا شرفتيسا كحد قدبه أما هنتديسي يا مالكيسي مثلا قاطة أما خيامية فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم هكحلا شذب النبي صلى الله عليه وسلم انت مالنت قيامة أين إيمانين مالنتاسي وقفك أونا هيسن وحو اسكو فرفرة أونا هيسنين درهم أونا هيسن دينارنا أونا هيسن شلنا أونا هيسن دولارنا أونا هيسن عد كإرجينيسانا هبا يراتا إينا جرين عد دوسعوتا إينا جرين maalinta qiyaame ee dadka marka la keeno qof kastiba qofka kale wixii uu ka galay oranayo ilaahu iiga gud kan uu dulmiyay cirdigayga iyo sharaftaydiiba ku xadgudbay maalkayga buu qaatay dhiig buu iga daadiyay waxa weeye ilaahu adoonkaas uu idilay maalinta qiyaame maalinta noocaasi intayna iimanin qofku ha ka xalaashada buu nabigu kaleey salaatu wasalaam saad uga xalaashanaysaa waxa weeye qofka wixii aad ka gashay ee mesela hanti aha ee aad ka dhacday ama aad ka boobtay ama aad ka khiyaamaysay inaad u celiso hadii aad sharaftiisa iyo cirdigiisa aad ku xadgudubtayna inaad tiraado war isaamax inaad tiraado walaalayaal samxiga dhaafida cafiska waxa ku jirta waxa weeye nolol wanaagsan baa ku jirta hadaana dadka iska cafin oonad iska dhaafin oo aanad kelmad wanaagsan كلمة حون أنا كلمة وناكسن وجو بدلين والكلمة الطيبة صدقة ورسول قول صلى الله عليه وسلم كلمة وناكسن واصدق قوي كلمة وناكسن واصدق قوي قفك ولالك هاي وجه بشوشة أو فرن أنا كل من سيد النبي يقول صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ولالك هاي وجه فرن أتوقع بشبه النقطة واصدق قوي إن أدمرك وحويان أد إسكع في سوي إن عندك إسكع في إنه إن إسكع دافنه inaanan oorka iyo utunta aanan iyo laabta aanan ku haysanin calaal xumo iyo xiqdi cidna aanan ugu haynin aan issaamaxno khayr badan iyo baraka badan ayaa ku jirta adduun iyo aakhiro waxaan ka helaynaa deganaan iyo xasilooni iyo nolol wanaagsan oo bogaadin leh ayaan ka helaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayrka inoo fajiyo adduun iyo aakhiraba ilaahayna subxaanahu wa ta'ala inaga dhigo kuwa dadka cafiya caloosha wax ku qabsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dhiga muxsiniinta ah إلهي سبحانه وتعالى أي نقدقه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.